dhabiya goonle iyo farmadow iyo gabagabo ee ilaa xodaya aan lugaynayni inaynu midna uro joogin baan u malaynayaa war dhulka ragii garanayay baan u nahay ragii ka jabhadeeyay baan u nahay ragii ku dagaalamay baan u nahay raggu meedkooda meel walba yaalay baan u nahay hadna u malaynina rag aan waxba garanaynin oo meelahan East Africa iska jooginaan nahay geed baan wax walba garanayna aqligaanu garanayna ragii shalayto meel walba maartay ku dagaalamay baan nahay ha u malaynina ina waxaan jiray ma sanad walba kolbay maartay xabada yala dhigaa marra waa la qaadaa kuwii ka horeeyo dhan nasiibka meena helin sida Mustafa Kole caanaha soo daadinayo adigana caanihii aad iska daadin baan ku leeyahay reewsaar waxaan ku leeyahay dadkaaga isku wad hoos soo gal kilalka waxa ka jira qabiilka hoos soo gal dawlad ma jirta qabiilka hoos soo gal arag waxa qofkii wax isku wadi kara ururkii nabadda ku soo galay colaad lagu abuuro illa kala jabiyo dadkii la kala qaybiyo oo qaab qabiilaysan loo kala qaybiyo ama dad maartay gaar la faquuqo waxa weeyaan baabiinta ururka الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد شركة مانتا سوغن نمت وحان جيدنا باق هذا وين أيان جيدنا ومالا بدن تابانيا باقاس وكو صابسن dhibaatada ka jirta dawlad deegaanka ee dhan walba leh ee maartay xaq amni leh oo xaq faquuq leh oo xaq xasha leh oo dhan walba oo xumaata leh ayaan maartay ka hadlaynaa taasoo kamid tahay ururkii nabadda qaatay ee ONLF ee qofka hadduu nabad qaato in lagu farxo ahayd in maanta loo durbaan tumayo in la leeyahay wardibu noqdo haddana halayna xasuuqe sidii leeyahay xasuuq jiray baa ladina xasuuqay duurka gala taas maartay la raadinaya taana ma dhacayso insha Allah ma dhacayso waxa maartay haday dhaheen war waxaan ku halgamaynaa inaan xaqana ku raadino qalin nabad ku raadino madaxweyne kilalka ka noqono reer wasaare Itoobiya ka noqono in la yeelay ahaydo garba loo sameeyay ma ahayn in la yiraahdo maxaad nabadda u qaadateen sidana hadda ka muuqata meesha war maxaad nabadda u qaadateen way taana suurada gal ma ah iyagana lagama xigo inay kursi kasta ay qabsadaan lagama xigo waxay u dagaalamayeen duurka ugu jireen kursi inay helaan bay ahayd xaqooda inay helaan bay ahayd xaqaaga iyo kursigu waa isku mid kursi aad maanta uu maartay ku fadhiyo Mustafa waa kii ONLF ma aha ku kale kaam ku fadhiya ninkii maartay bari kursigii leegada waxa ku fadhiya Ibrahim waan is garanaynaa inagu laakiin kursiga ONLF waxa ku fadhiya ninkana ku fadhiya wayna ognahay waxa weeyaan been la isu sheegin Soomaalidu meel kasta oo joogto 4.5 kiina waxa ku fadhiya Mustafa ku fadhiya waxa weeyaan kursigaas si loo ilaalin lahaa ee magaca ONLF lagu ilaalin lahaa ee magaca deegaanka lagu ilaalin lahaa ee majority-ga lagu ilaalin lahaa ee dadka majority-ga ee la leeyahay minority batihin waxba kama jiraan waan ognahay anagu wixii jiro dhan baan ognahay dhulka dhan baan ognahay inta la degaan ognahay taana suuragal maaha marna ma aqbalayno mana yeelayno sidii maartay naagihii maartay aamuska lagu meheriya kollo ma yeelayno mana aamusayno adduunka dhan ma ka dhawaaqayna wixii qaldan waa qaldan taan leena wixii saxsan waa saxsan taan leena Mustafa hadduu saxsan yahay war waa saxsan taan leena hadduu qaldan yahayna uu qaldan yahay leena wixii qalada waa inuu maartay uu garto oo dadkiisa la hadlo oo dadkiisa qof dadka aad xukunto qofna aragtidaada u raaci qofna aragtidaada ka soo horjeeda labadaba aad madaxweyne ma aha kii aniga aragtideeda raacsanna waa walaalkay waa hebel waa ila joogi kii aragtideeda diidanna waxba soo manihin ma aha labadaba aad madaxweyne waynu is garanaynaa waqtigii ninkii hore joogay wixii aad sameyn jirtay eed qori jirtay eed ka hadli jirtay wixii oo sidiisii ah oo jidkii una oo wadadii ah inaad qaado ma wadadu waa inaad wadadii ka leexato wadadu waa inaad wadadii ka fiicnaato waa inaad maartay dadkaaga isku soo dido waa inaad qof kasta oo dhibaataysan ogaato waxaan kale kaga digayaa beelaha iyaguna maartay la isku dirayo ee la leeyahay reebel baa dhulkiina qaatay reebel ka hor imaw ee la isku dilayo ee dhulka la isugu waxaynayo beelaha yaan la isku dir
dadka shacabka ayaan la isku dirin arrimaha jira waanu ognahay ee gobolada ka jira waanu ognahay ee meel walba la isku dirayo dadka la isku qudinayo ee la leeyahay war isdila ee laga raadinayo maartay siyaasad laga raadinayo arrintaas waa arrin aan aqbali karo ma aha arrinta hadda ka taagan faafan oo kale ee la doonayo in abaskuul iyo maalin guur la isku diro taana ma ogolin baan leenahay in la isku diro ma ogolin nin walba wuu yaqaanaa dhulkiisa meeshuu degi jira wuu yaqaanaa beertiisa wuu yaqaanaa ceelkiisa iyo wadadiisana wuu yaqaanaa war dadka in la isku diro ma aha in siyaasad laga dhex raadiyo ma aha taana ma ogolin iyadana ma ogolin marnaba ma ogolin weeyaan qof waliba meeshuu ilaahay ku abuuray inuu ku noolaado oo beertiisa iyo dhulkiisa joogo yaa loo baahan yahay dadka in la isku dirana ma aha dawladdu ina dadka u dhaxaysa ahayde dadka ina qaybna ay la safato qaybna ay maarta ka safato ma waa ina dadka isku wada weeyaan dadka dhan in la isku wada weeye waxa weeyaan dhibaatada jirta hadda waxaan maqlaynaa oo la faa maarta kala fiicnaatayo qaybna way fiicnaatayo waa kuwii fiicnaayo maarta hayo xaq aha oo maarta hebel oo garanayno waa kuwii xaq aha kuwana waa kuwii xaq darrada aha yaan arkaynaa maal dhaweyd baan wuxuu leeyahay soo qoray cadaan xubinba kama ahayn maartay xubinba kama ahayn boonalf waxaan u malaynayaa dadka hadda meelaha hadlaya waqti cadaan aan isku arki jiray meesha la yiraaho dhabiya goonle iyo farmadow iyo gabagabo ee ilaa xodayo aan lugaynayni inaynu midna uro joogin baan u malaynayaa war dhulka ragii garanayay baan u nahay ragii ka jabhadeeyay baan u nahay ragii ku dagaalamay baan u nahay ragii meedkooda meel walba yaalay baan u nahay hana u malaynina rag aan waxba garanaynin oo meelahan East Africa iska jooginaan nahay geed baan wax walba garanayna aqligaanu garanayna ragii shalayto meel walba maartay ku dagaalamay baan nahay ha u malaynina ina waxaan jiray ma sanad walba kolbay maartay xabada yala dhigaa marra waa la qaadaa ragga hadii la qudiyo waragu maartay waa fardajan hadii la qudiyo lagu tala galay in duurka galaan oo dagaalamaan adiguna kursiga raaxa kuma fadhiinaysid ka daaban leena urkoona waxaan leeyahay ugu baaqaya iyaguna dhaxdooda inay hagaajiyaan oo kuwii maartay oo lafta magaca sheeganaya oo arkaan waxa jira ay arkaan way is og yihiin shacabku meeshu jira way og yihiin dadku meeshu jira way og yihiin wariya naasaan jaabin ka daaya sida maadillah war sidan iska daayaan illah waxaan leeyahay sidan iska daaya haddii aad urur siyaasadeed noqoteen siyaasaddu ma aha in idinka la idinku dhex ciyaaro siyaasaddu ma aha in idinka la yidhaaho kana oo fiican tahay kana oo xun tahay oo haye waa fiican anoo fiican ay tiraadan ma aha waxaan leeyahay ragga kale maartay ina banaanka taagan war gaalba gaal igama xige awakay galbeed buu yiri war idinkuna bartanka u fadhiista gaalada waaweyn ku biira oromada ahmaarada ku biira tigrayga ku biira kolba gaalki meesha qabsada ka u sareeyay ka soo turjumay ka soo jawaab noqda iska daaya maartay banaanka taagnaanayna taana ma ogolin waa inay salka loo galo weeyaan oo kolba hadii aan naxariis kala jirin islaamnimo jirin oo nin walba xiniyaha soo buurtay waa in maartay isbaarka ugu sareeya la galo weeyaan aad iyo aad baan u mahadsantihiin dhamaan baan shirweynahana waan maartay u mahad celinayaa waxaan idin leeyahay aniga wasaaraha waan isnaqaanaa waan arkay ra'iisul wasaare adigu nabad baad waagi hore waad raadin jirtay nabad baan rabaa baad oran jirtay oo la fiiyo nabad ay ku timid qolo walba iyadoo nabad ay ku timid ra'iisul wasaare uu nasiib badnaa baa tahay kuwii ka horeeyo dhan nasiibka meena helin sida Mustafa Kole caanaha soo daadinayo adigana caanihi aad iska daadin baan ku leeyahay ra'iisul wasaare waxaan ku leeyahay dadkaaga isku wad hoos soo gal kilalka waxa ka jira qabiilka hoos soo gal dawlad ma jirtay qabiilka hoos soo gal arag waxa qofkii wax isku wadi kara qofkii wax isku wadi kara beesha u dhiibo qofan waxba isku wadi karin ka qad qofka haduu waxba isku wadi karin oo shacabka isku wadi karin oo nabadda ilaalin karin oo ciidankiisa habaysan karin oo waxba uu ahayn ka qad baan leenahay qofkii wax isku wadi kara dan oo dadka ma aha in shaati iyo surwaal inta la xidho la yiraaho ana hebelaha ma aha ma garatay ra'iisul wasaare waxaan aad kugu baaqaynaa dawladda federaalka Itoobiya waxaan kor iyo hoos ugu dhawaaqaynaa arrimaha kilalka ka jira inay hoos soo gasho inay fiiriso khatarta soo socota khatartu haddana adig ku muuqan annaga way noo muuqataa khatarta inaad ka hortagto oo aragto oo ogaataan kugu baaqaynaa والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ah shir nabadeed
baan ku qabanaynaa Nairobi. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Maxamed xasan baa la yidhaahdaa. Shirkaa jaraa'id waa shir nabadeed, waa shir baaqa oon dirayno. baaqaas oon u dirayno dowladda dhexe ee Itoobiya iyo takililka shanaad labadaba aan u dirayno oon ka hadlayno danaha kililka shanaad. marka hore waxaan ka hadlahayaa kililka ay horeynaya. kililka waxaan odhan lahaa kililku nabad buu ku fiican yahay, sidiisabana dalka iyo dadku nabadda ayuu wax ku taraa oo nagu deeqaa. in nabadda la raadiyo, nabaddii la raadiyey ee laga wada hadlay ee dhibaatada badan loo soo maray, halgankii dabada dheeraa ee hadda u dambeeyey, halganka meel bannaan oo cidla lagama qaadin. anigu waxaan ahaa halgankaa kii ka horreeyey baan ahaa, qorigaan dhigay. waxaan filahayaa 3 meelood mid walba kol waan ku dhaawacmay. hadda koley rag badan oo isgaranayno way daawanayaan oo way arkayaan. waxaan ahay ninkii koowaad ee 77 ninkii koowaad ee kooxdiisa koowaad ay gashay dagaalka laab ka dhacay yaan ahay. waddanka dagaalka ka dhacay oo madaxa xabada igaga dhacday, oo gacanta igaga dhacday, oo lugta igaga dhacday. in lagu ciyaaro ma jecli, in xorriyad lagu gaadhaan jeclahay. laakiin ani waxaan leeyahay madaxweynaha kililka nabad raadi baan leh. colaad waxba ma tarayso, wax unba inaga dili ma ogiya, waxba ma tarayso. xumaan la raadiyaana waxba ma tarayso. nin aad la ficiltantayna waxba ma tarayso. hebel la ficiltanoo iska celi waxba ma tarayso. waxaan leeyahay madaxweynaha tahay, dadku ha kuu sinaado, cadaalad raadi. ayadoo oo wax badan la sheegaayo haddana adigu nabadda raac. wax badan baa lagaa sheegi, ama wax runa iyo wax beera labadaba. laakiin muhiimaddu maxay tahay? inaad adigu raadisid runta nabadda. hal wiil meeshuu ku dhinto adoo nabad raadiyaa ka fiican wax ka badan iska daaye. ama dad ku kala dhinto, ama ku kala irdhoobo, ama laysku naco, inaad iska ilaaliso. arrintaa inaad iska ilaaliso ayaan aad u jeclahay. waxaan filayaa waxaan la facahaa oon waqti xabadda wada bilownay cali shucaac. xabadda mar baan wada bilownay, meel baan ka soo wada baxnay. waxaan filayaa hadda raggii meeshan igaga tegey sida sanweyne oo kale kol baan xabadda wada ridnay. waxay la tahay maaragtay in waxba ma tarayso in oo ururkii nabadda ku soo galay colaad lagu abuuro, in la kala jabiyo, dadkii la kala qaybiyo, oo qaab qabiilaysan loo kala qaybiyo, ama dad maaragtay gaara la faquuqo. waxa weeyaan baabi'inta ururka. waxaan la hadlahayaa sida qalbi dhagax oo kale. qalbi dhagax waan is ogeyn, waxaan isku ogeyn dadka isu keenne inaad adu hadda hawshaa gasho. ma ahayn adiga sulub iyo ani waan ballannay, meeshan ku ballannay waad garanaysa. inaan dadka isu keenno, isu raadinno, oo nabadayna aanu ciddii khaldanna aan dhinac u joojinno, intaasay ahayd. ma ahayn in la yidhaha hadda garab baan nahay, annaga kuwana waa garab, hebelna waa sidaa, hebel waa sidaa. haba noqoto waxaan leeyahay cagjar ina maxamuud cagjar. waxaan leeyahay adigu reeraha iyo dadka iyo ururada iyo waxa intaad kala raacdo, wixii xumaanee meesha ka dhaca adigaa hadda ka madaxweyne ah. wixii isdila ee dhib geystana adigaa madaxweyne ka ah. dhibkaasuna ilaa qiyaamo adu kula soconaya. sheekaduna weligeed taariikh way hadhi, oo nin baa noolaan. ninku wuxuu sameeyo ee xunna waa loo qori, wuxuu sameeyo fiicanna waa loo qori. laakiin arrimahaas noocaasa ani waxaan ku odhan lahaa iska ilaali. midna meel lagumaba gaadhayo. ciidan baan kala marahayaa. hebel qalbi dhagax oo hadda qabso dhulka oo tuulooy degmooyinka iyo dadka jooga, ruux aan ku ogolayn madaxa ka garaac. war innaa lilaahi wa innaa ilaihi raajicuun. war wax badan baa jira. war alla xishoodo, arrintaa la soo reebto, ha laga soo reebto. qalbi dhagax ka soo reebo, war ka soo reeba, arrintaa ka soo reebo. war kuma fiicno ummadda Soomaaliyeed oo dhan baad u sinayde, arrintaa ka soo reebo. taas ila tagin. waxaan sii raacinayaa ra'iisul wasaaraha dalka xukuma. ra'iisul wasaaraha dalka xukuma adaa mas'uul ka ah. dalka ilaahay baa mas'uul ka ah, adaa xukuma dadka iyo dalka. oo xumaan ay kula timid hadday jirto soo dhig. haddaysan jirin
in qarrida ku noqda la yidhaaho dagaal bilaaba la yidhaaho ma aha 10 nin baaba hadday colaad samayso dhibaato badan yaa geysan karta 10 nin in la yidhaaho dadkii soo galay ee soo xarooday ee nabadda qaatay oo hubkiisii idinku wareejiyey ee ciidankiisii idinku wareejiyey colaad lagu abuuro wax fiican ma aha in dadkii hadda la yidhaaho qalbidhaga ruuxaan ogoleen waa la caydhinayaa degmooyinka iyo tuulooyinka ma aha ma jirto dalku waa dalkeenni dadkuna waa dadkeenni wax xun weeye waxaas halna ogaado oo lasma qasbi karo wax qasab la yidhaaha ma jiro waa been ma dhici karto naaga gabagabagalma ma diidaan ma dhici karto wax la yeeli karana maba aha ra'iisul wasaare arrintan soo dhexgal arrintan wax ka qabo nabadeeda raadi dhibku meeshu ka socda raadi waxay yidhaheen dowladda Ethiopia oo elef waxay yidhaheen way maartay arrimihii aan isku ogeynay nabadii way ka baxday oo qori baanu qaadanaynaa mayna oran inay dooday rabtaa miiskay soo dhigatay way hadashay marka in lala hadlay u baahan tahay in lala hadlo wax garadna uu la hadlo ayay u baahan tahay oo elefna waxaan leeyahay qarri ha gelina qorina ha qaadanina ninkii fadhigiisa idinku dilahaya ama ciidan meelahan dhaxa ka soo urursanaya waa la arki doonaa waxaan ku soo hadalkay ku soo gabagabeynaya waxba aan hadalku ila tagin waranaw nabad baan doonaynaa in dalka iyo dadku ay ahaadaan inaan cidna waxba loo dhimin baan doonaynaa hadda ninka la yiraahdo madaxweynaha kililka walaalkii baa la dilay hal la dilay waqtigiisii baa galay hadda cid loo eersanayna Cabdi Maxamuud bay ahayd madaxweynaha cidna muusa bixinin cidna ammaan lama siin cid walba waa la dilay ragga la leeyahay ama ku dhimanaya banaanahana waad ogeydeen hadda maxaan dhahnaa madaxweyne ma waxaan ku dhahnaa hadda aaradoon weeye walaalkii wiilkii walaalka Allah aaranaya taa hayeelin oo fargaara kugu godane hayeelin waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha kililka labadiinaba war xil baa idinka saaran dalka war dadka xil baa idinka saaran waxaan ma shaqeynaa hebel oo aad madaxweynaha kaale ma shaqeynayso dadka madaxa isku gelinaa isku dilina dhibaatada hal la reebto hal soo reebto waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu shirkan jaraa'id ay odayaashu maanta ugu baaqayaan dowladda federaalka iyo dowladda deegaanka waa shir waqtiga uu ku soo beegmay waqti aad iyo aad khatartiisa u leh waa shir يعني ككيني عبشو iyo waxyaalaha noo muuqda ee khatarta leh hadii wax khatar oo ku soo socota aad ka hortagi weydana ka daba tageedu waxba ma sheegayo marka aniga waxaan ku wajahanahay dowladda federaalka ee Ethiopia oo aan 2018 bay heshiis nabadeed ku tagtay deegaanka way joogtay xubnaheed iyo taageerayaasheed iyo ciidankeeduba uu joogay nabadaasi nabad qiimo leh bay u ahayd dowladda Ethiopia iyo gaar ahaan dowladda deegaanka labadaba meel fiican bay soo gaadhay waase lagu ciyaaray waxaad moodaa in yani nooc awr kacsiya oo aad moodid in yani cimri dheer laga raadinayo in maaragtay loo kaakicinayo oo quraanjay geelaagi waa la dhacay ee hadda hawsha ku jirtaad moodaa waxaa wax aad iyo aad looga xumaadaa oo la qaadan karina xabsiyada ay ku dhimanayaan dadku iyagoo dembi ay galeen aan la garanaynin oo caruuraha aan qaan gaadhini ay ku dhimanayaan iyo gabdhaha iyo haweenka hooyooyinka odayaasha xabsiya xataa aan la aqoonin baa ka furan gobolada iyo magaalo madaxda deegaanka labadaba marka intaas oo dhan in dowladda federaalku ay ka indhaqarsato waa arrin la yaab la weeyaan intaa waxaa kaloo uga gudbahayaa heshiiskii oo la fiiyay Ethiopia dhaxmaray oo aad moodid inuu meesha ka sii baxayo waxaan leenahay heshiiskaas hadduu meesha ka baxo wixii meesha soo galahayna waa la garanayaa wax bedeli kara oo nafna ma jiro neeba oo naf masuul kama aha mana dhisi karto waraaqina oo naf ma ahe dad baa oo naf meel la joogaba dad baa oo naf ama dibad hala jooga ama dad hala jooga waa la isgaranayaa abashada maanta ay jeedinayaan odayaashu waxay daaran tahay dhibka ka socda deegaanka dowladda federaalka ana arintaas ku fiirsan haysa dhibkuna wuxuu iskaga hor iman doona marka dambe ciday doontaba ha adeegsato oo wakiil dowladda Ethiopia iyo ururka oo nalafiyo shacabkiisa iyo taageerayaashiisa ayaa iskaga hor iman mar walba waxa soo socda in laga digana waa odaynimo iyo mas'uuliyad weeyaan aad baad u mahadsantihiin odayaashiga hor hadashay intaad ka hadasheen baad ku mahadsantihiin aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa guuliga gobonimo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh